السلام الله عليكم أخيارتا نلا سعوتا ميل كستوا دونيدا كجوكتان كسر وادا تبين كلا oo kamida wararka faaqidaada gobolka bariga dhexe caawa qodobadaan idin kugu hayana waxa kamida Trump ayaa wadamada qaliishka ka codsaday inay bixiyaan qarashaadka lacagaha dagaalka dawladda Iran xilli wadamadaasi ay la tacaalayaan weeraro uga imaanaya dawladda Iran Trump ayaa waxa uu tilmaamayaa inay muhiim tahay wadamadaasi haddii aanay taag military uga qayb qaadan dagaalka inay bixiyaan taakulayn dhaqaale haddaba sidee caawa warkan loo fasirayaa maxayse warbaahinta adduunka ku faaqidayaan warbixin gaar ah ayaan barnaamijka ku eegi doonaa shan shirkadood oo waaweyn oo ah kuwa ugu wax soo saarka badan qalabka militariga iyo dagaalka ee dunida oo ku yaala Mareykanka ayaa iminka loo arkaa inay yihiin kuwa helaya suuqa ugu ballaaran ee dhaqaalaha kadib dagaalka ka holcaya gobolka bariga dhexe Mareykanku waxa uu si ka duwan meelaha dadku ay ka eegayaan ka sameynayaan dhaqaale iyagoo ay kordhayaan shirkadahaasi dalabaadka military ay helayaan ee dawladaha gobolku ay codsanayaan haddaba maxaad ka taqaanaa shirkadahan waxa ay soo saaraan iyo waliba qarashaadka ay heleen sanadkii 2024 kaliya marka xiisada gobolka bariga dhexe ay cirka isku shareertay kadib dagaalkii Falastiiniyiinta dawladda Bahrain waxay gacanta ku dhigeen sida ay tilmaameen saddex kamida dhinacyada la shaqeeya ururka xisbiga ee wadanka Lebanon dawladda Iran waxay ku dhawaaqeen inay xireen xubno la sheegay in ay ka tirsanaayeen dhinacyada xogaha ka bixinaya dawladdaasi ee la shaqeynaya sirdoonka shisheeye dawladda Imaaraadka nidaamyadeeda difaaca hawada caawa waxay ku fashilmeen duqeymo lagu soo qaaday dawladda Iran waxay bixisay tafaasiil ka dhana hadaladii ka soo baxayay madaxweyne Trump iyadoo wasiirka amuraha dibadda ee wadankaasi Iran Abbas Araghchi uu xaqiijiyay in haba yaraatee xilligan aysan jirin wada hadal Mareykanku ay la leeyihiin Israel waxay la kulmaysaa duqeymo xad dhaaf ah halka sidoo kale la burburiyay qalab military oo yaalay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baghdad xiisada dagaalka gobolka bariga dhexe waa sii kordhaysa waxaana hadda xaaladdu ay u muuqataa inay faraha ka sii baxayso ikhtiyaartayna la socota ay tabinta wararka caawa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa soo dhawaada idilkiinba meel kasta oo aad dunida ka joogtaan kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara مسؤول سرا oo ka tirsan dawladda Iran oo goor dhaweyd la hadlay telefishinka Al Jazeera waxa uu tilmaamay in aanu jirin wax iska bedelay qorshihii dawladdaasi ee ku aadanaa marinka Hormuz waxa uu qeexay in cid kasta oo halkaasi maraysa kaliya ay ku gudbi karaan ogolaanshiyo ka yimaada dawladda Iran arrintani waxay noqonaysaa mid Mareykanka saameyn weyn ku yeelanaysa maadaama Trump uu xusul duub ugu jiray maalmihii ugu dambeeyay in dagaalka gobolka bariga dhexe laga keeno guulo ku saabsan marinka Hormuz oo ah marin istiraatiiji ah oo 20 kamida tamarta adduunka halkaasi ay maraan xilli dawlado fara badanna ay sheegayaan inay muhiim tahay in halkaasi xal loo helo dawladda Bahrain ayaa xaqiijisay inay gacanta ku dhigeen saddex kamida ciidamada Hezbollah ee wadankaasi Lebanon ka tirsan waxay tilmaameen raggan inay yihiin unug argagaxiso oo wadankooda ka shaqeynayay Bahrain waxay ka mid tahay wadamada sida weyn ay u saameeyeen dagaalada ka holcaya gobolka bariga dhexe isla markaana ay maasheeyeen gantaalada dawladda Iran ay ku garaacaysay qaybo kamida gobolkaasi oo ay ka mid tahay caasimadda Manama ee dalkaasi Bahrain wakaalada wararka ee Mehra lagu magacaabay dawladda Iran waxay xaqiijisay inay gacanta ku dhigeen laba qofood oo kamida muqaabaraadka shisheeye ee wadankooda ka howlgalayay dadkan ayaa laga qabtay magaalada Isco ee ku taala waqooyi galbeed sida ay tilmaameenba mas'uuliyiinta iyagoo xoga ka qaadaya baaliri meel xasaasi ah oo ay suuragal ahayd in la beegsado nidaamyada difaaca ee wadankaasi isu taga Imaaraadka Carabtana caawa waxa ay la kulmeen gantaalo xoog leh iyagoo halkaasi la sheegay inay shaqeyn waayeen gantaalaha qaar ayaa la sheegay meel ay haleeleen inay ka mid tahay magaalada Al-Shaariqa lagu magacaabo xafiiska warfaafinta magaaladaasi waxa ay tilmaameen wali in ay la tacaalayaan sidii
guryaha dhibaatooyinka gantaaladu ay gaarsiiyeen xal looga keeni lahaa. gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Iran ninka lagu magacaabo Ghalibaf waxa uu yiri shacabkeenu waxay diyaar u yihiin inay ka hortagaan dhibaato kasta oo kooxaha cadowgu ay doonayaan inay ku hagardaameeyaan gudaha wadanka Iran. waxa uu sidoo kale sheegay in dadka oo wada jira iyo waliba dawladnimadu ay si guud u wada shaqeynayaan si looga hortago dhibaatooyinka sii xoogaysanaya. dawladda Iran waxay sheegtay in koonfurta wadankooda lagu dilay caawa 8 qofood oo la sheegay in ay la kulmeen duqeyn ay qaadeen ciidamada isbahaysanaya ee Mareykanka iyo Israel. koonfurta wadankaasi ay duqeymahan ka dhaceen. ciidamada ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran waxay ku dhawaaqeen in ay soo rideen qaar ka mid ah diyaaradaha iswada ee wadankooda lagu soo weeraray caawa. iyadoo dagaalka gobolka bariga dhexe uu sii xoogaysanayo haddana Mareykanku waxa uu la kulmayaa dharbaaxooyin adag oo uga imaanaya saaxiibadiisa NATO. dawladda Spain ayaa ku dhawaaqday guud ahaanba saldhigyada wadaagga ah ee kala dhaxeeya Mareykanka inaanu jirin wax duulimaada oo ay ka samayn karaan halkaasi oo ay doonayaan inay ku garaacaan gudaha wadanka Iran. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Madrid ayaa waxa uu yiri tallaabadan waxay ka dhigan tahay inaan kaga fogaano dagaaladan sii xoogaysanaya iyadoo maalmihii ugu dambeysay Mareykanku uu muujinaya cadaadis uga imaanaya dalkaasi Spain. mas'uuliyiintu waxay tilmaamayaan in xayiraadda Mareykanka ee hawada Spain ay noqonayso saameyn kale oo dagaalka ku timaada iyo wajagabax Trump uu kala kulmayo saaxiibadiisa NATO. iyadoo dagaalka gobolka bariga dhexe uu galay marxalad xasaasi ah dhaqaale burbur xooggan uu ku gaaray dawlado fara badan oo caalamka ah haddana waxyaabaha la ogaaday waxaa ka mid ah in Mareykanku uu ka faa'iidayo dhaqaale ballaaran. xilliga xiisadda gobolka bariga dhexe ay kululaatay sanadkii 2024 shanta shirkadood ee ugu waaweyn gobolka aan iraahdo Mareykanku ee militariga agabkoodu ka shaqeeya waxay sameeyeen lacagihii ugu badnaa. haddana shaki kuma jira haatan inay helayaan dalabaad badan sida ay tilmaamayso warbixin afaleyn military ah uu sameeyay telefishinka Al Jazeera. warbixin cusub ayaa muujinaysa in muddo 10 sano ah shanta shirkadood ee Mareykanku ay ugu waaweyn dhinaca militariga ay sameeyeen wax soo saar dhaqaale oo ballaaran kuwaas oo qayb ka ah waaxda difaaca ee wadanka Mareykanka. shirkadahan ayaa loo yaqaanaa shanta weyn The Big Five waxaana saameyn muuqata ay ku leeyihiin qaybaha ka mid ah miisaaniyadda maamul iyo difaaca ee dalka Mareykanka. waxaana haatan ay helayaan oo gobolka bariga dhexe uu xaalad culus ay ka taagan tahay dhaqaale fara badan. sanadkii 2024 oo gobolku galay xaalad aad u weyn waxa la sheegay shirkadahan inay sameeyaan lacag ballaaran. Lockheed Martin shirkadda la yiraahdo ee soo saarta diyaaradda F-35 kaliya waxay faa'iiday 4.65 bilyan oo dollar sanadkii 2024. shirkaddan waxay soo saartaa diyaaradaha dunida ay wada raadinayaan ee F-35. shirkadda la yiraahdo RTX Corporation oo soo saarta nidaamyada difaaca hawada ee Patriot iyo gantaalka Tomahawk waxa kaliya ay faa'iido baaliri ama dhaqaalaheeda uu gaaray sanadkii 2024 3.46 bilyan oo dollarka Mareykanka. shirkadda kale oo ka mid ah kuwa ugu ballaaran ee qalabka badda ee difaaca soo saara iyo militariga ee la yiraahdo General Dynamics qarashkeeda waxa uu gaaray 3.63 bilyan oo dollarka Mareykanka waa sanadkii 2024. shirkadda dhinaca diyaaradaha ee Boeing la yiraahdo oo dhinaca militariga iyo rayidka ee Mareykanku waxa ay qiimaha ay soo saareen uu gaaraya sanadkaasi 3.55 bilyan oo dollarka Mareykanka waa sanadkii 2024 oo kaliya. shirkadda Northrop Grumman ee Mareykanku dhinaca sirdoonka iyo dayax-gacmeedyada ka shaqeysa isla markaana samaysa diyaaradaha ka dhunta raadeerada ee B-21 loo yaqaano
waxa ay samaysay 37.5 bilyan oo dollarka Mareykanka sanadkii 2024. isbeddelkan waxaa sii dheer shirkadaha kale ee kobcaya ee daba socda 5 shirkadood waxaana ka mid ah shirkadda SpaceX, Antral Industries iyo shirkadda la yiraahdo Palantir kuwaasi oo dhinaca tiknoolajiyada iyo difaaca ka shaqeeya. shirkadaha waaweyn ee dhinaca tiknoolajiyada sida Microsoft iyo Google iyo shirkadda IBM iyana waxay noqdeen kuwa dareen fiican siinaya dhinaca dhaqaalaha iyo waliba heshiisyada difaaca sanadihii ugu dambeeyay. tan oo marka la isku geeyo ka dhigan in Mareykanku uu dagaalada ka sameeyo dhaqaale ballaaran sida qubaradu ay ku doodayaan. afayeen u hadlay aqalka cad ee Mareykanka oo lagu magacaabo Cornel Levitt waxa ay ku dhawaaqday caawa in madaxweyne Trump uu dalab hor dhigay madaxda wadamada Khaliijka uu ka mid yahay Sacuudiga, Qatar iyo Kuwait in ay bixiyaan lacagaha qarashaadka dagaalka isla markaana taakula ciidanaysan Mareykanka taakula dhaqaalaysan Mareykanka haddii aysan taag military lahayn oo dagaalku ay uga qayb galaan. tani waxay muujinaysaa iyadoo saacadihii la soo dhaafay wadamada Khaliijka madaxdoodu ay kulmayeen oo isla markaana ay ka hadlayeen xaaladda dagaalka ee gobolka Bariga Dhexe. Urdun, Qatar, Imaaraadka Carabta iyo waliba dalka Sacuudiga waxay haatan u baahan yihiin in dhaqaalahaasi ay bixiyaan si ay kaalmo difaac u helaan. haddiise dhaqaalaha ay bixiyaan waxay ka dhigan tahay in dagaalkii militariga ay si toos ah ugu biireen. dowladda Ciraaqna waxay caawa ku dhawaaqeen in la weeraray garoonka diyaaradaha ee Baghdad saldhig ku dhex yaala oo military iyadoo la burburiyay diyaarad Antonov oo ay ciidamada militariga dalka Ciraaq ay ku doolayeen. gantaalo loo malaynayo dowladda Iran ayaa waxyeello gaarsiiyay. dhinaca Israa'iilna duqeymo xoog leh ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhaceen dhowr magaalo oo kala duwan oo Tel Aviv ay ka mid tahay. khiyaartayna la socotay tabinta qaybtan inta ayaan ku hakanayaa waa barrow idin leh waqtigu ha idin samaado. nabadgelyada.